Waan soo dhaweynayaa xarunta Suubi marka hore horta magacaygu waa Sheekh Aadam Xasan Ibraahim maamulaha xarunta Suubi Rehabilitation and Wellness degmada Gaarisa hadii aan faahfaahin ka siiyo Suubi Rehabilitation maxay qabataa Suubi Rehabilitation waxay u adeegtaa bulshada ku nool gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan degmada Gaarisa ayaan ka howlgalnaa waana branchiga Gaarisa waxaan qabanaa dadka xanuunsanaya madaxa ka xanuunsanaya saddex qaybood ahaan dadka u kala qabanaa xaqiiqatan dadka xanuunsanaya ee macduuriinta ee Soomaaliyeedna guryaha ugu xirxiran asiliga in lagu xiro guryaha lagu hilmaamo ee guryaha ku xirxiran ee shaqooyinka laga kala aado ayaa noloshooda Ilaahay ayaa wax soo celiyay laakiin in waxaan isku daynaa aan xanaanayno dhakhtar caalami oo international doctor oo isbitaalka weyn oo BGH ka howlgalo oo maartay maxaa la inta xafiis ku leh ayaa jira oo xarunta la shaqeeya Suubi Rehabilitation la shaqeeya oo qaybta mentalka qofka sidaas oo kale macduurka oo xaafadaha reeraha meelaha ayada ku xirxirnaa ama kuwa magaalada lagu dhaxday balwada iyo waxyaalaha ay maartay diloodeen qofka noocaas oo kale nolosha ka dhacay markuu hore dhakhtarkan u keenayna maskaxdiisa ayaa baaritaan lagu sameeynaya heerka uu marayo iyo marxaladda uu marayo marka kadibna meel Allah wixii daawo meesha wixii ugu haboon oo dhakhtarku u qoray aan kulo maartay aan kulo tacaaleynaa quraankiina waan saareynaa oo korkiisa insha Allah quraankii yaan saareynaa wuuna caafimaadaya insha Allah wixii qofkii qof la sixray uu ahaa ama jin iyo waxyaalaha ay hayeen xaasid waxyaalaha wixii dhan baan kala dagaalamayna dhakhtarkina waa noo jooga oo asagana waqtana taladiisa waan wadanaa marka sida ayadaan dadka macduurka ee madax ka xanuunsanaya aan kula tacaalnaa waxa kale oo jira dadka maartay maxaa la dhahay dadka balwada dilootay kulay North Eastern hadda gobolka Waqooyi Bari xaqiiqatan dhalintii waxbarashada xitaa way wada diideen waxa dilooday ilmaha waxaad arkay iyagoo secondary iska dhigan ama primary baan ugu dhiganayo arkaysa oo balwad inta soo sana iska isticmaalayo ama qarsanaayo baadan fahmaynin marka dambana waxbarashada ka soo jeesanayo ilmaha maartay maxaa la dhahaa dadkaas oo kala daroogada dilootay qaadka sigaarka baasha sheeshada bahal flavor la dhahaa bariyan soo baxday ku leeyihiin waxyaalo ay dhuqaan oo sidii xitaa mobilka dhana jiro oo jeebabka ku wataan waxa dhanba yaan maartay dhalinta kala dagaalanaa anti drugs anahay wixii maartay Ilaahay wax gooyo qofka hanuuniyo anaga laakiin dadaalka in la imaano oo dadka dhaqan celin u sameeyno oo quraanka canugi hilmaamay quraanka inuu bartay hore u fakiyay ee kana waligiiba loo dhiginba dadka dhanaan wax barnaa oo quraanka dib ugu bilawnaa oo maartay counseling u sameeynaa wax badan way ku wanaagaan insha Allah way ku wanaagsanaadaan ciyaalku way ku wanaagsanaadaan dadkaas sidaas oo kale daroogada qaadka iyo sigaarka iyo sheeshada iyo xashiishka iyo waxa isticmaalo dhan waa qabanaa caaswaalideenkan qabanaa maartay wax Allah wixii wad u jeedaa hadda wixii meesha galaasheeda ku qoran oo dhanba waan la tacaamulnaa waan qabanaa quraankana waan saarnaa dadkii waan barnaa dhakhtarkina waan leenahay oo mental doctor oo dadka xitaa balwada isticmaala naftooda mentalkaas ay soo galayaan oo waa wixii dadka daroogada isticmaala qamrada iyo xashiishka waxa dadka waalo dhalinta waalo waxa u sii badan marka dhakhtarkina hadii markuu horeyso daawada u qoraba nasiino helaya iyo jawi degan saddexda waqti oo cunno oo dhameystiran oo noloshiisa qofka oo maartay bini'aadamnimadu ku soo noqonayo de qofka bini'aadamku markuu balwad zaid u isticmaalo qadku ka baxaya wuxuu yahay wuxuu Ilaahay u abuurtay buu hilmaamaya salaadii oo hilmaamaya iyo wixii lagu lahaa waajibaad saarnaa marka qofku shantiis waqti tukado nasiino buuxda uu helo daawada dhakhtarka uu qoray aan siino quraankiina aan korkiisa saarno insha Allah uu ku caafimaada Ilaahay idin wad mahadsantii walaal qaybtan waa rag iyo dumar sida hadda meesha ku qoran u jeedo gadaasheeda rag iyo dumar waaya laakiin inta badan hadda adigu xaruntan waxay furan tahay 3 bilood amal ay furan tahay laakiin hadda wali maanan gabdhihi kumaanan darin laakiin wayno barnaamijka anaga way ku jirtaa
laakiin waxaan rabnaa insha Allah ayagana barnaamijkaas gabdhahan inaan sii dardargelino oo meel u furno haduu Allah ka raali noqdo sida iyadu way qaabkan u shaqeeyo walaal waad mahadsan tahay dadka qofka marka noloo keeno marka koowaad intuu baryaaya qofka waa meeshan waa boarding amal waaya xanaano way meesha waxa way intuu baryaaya qofka waalidka way inoo keenayaan anaga la wareegayna ayaga marka ayada booqasho iyo korka ogaasho una nagu leeyihiin waalidkii wixii xanaana noloshiisa iyo wixii soo dhanba xarunta ayaa maartay ayaa ka faala qaadayso wixii waxa way waalidka wixii tasiilaad ee loogu talagalay ardada laga qaadayo una laga qaadaya wixii xanaana quraan saar la tacaalida waa xarunta Sober Rehabilitation and Wellness u xil saaran intuuna baryaaya qofka waa inta qolalka 8 qol amal waaya maartay maxaa la TV-gooda wax walbeeta quraanka waxyaalahaas taariikhaha history Islamic history lagu fiirsanayo wixii ugu dhex jiraan oo ismadaalinayaan meesha meel lagu curyaansan yahay ama maartay xabsi isaa maartay dadka lagu dhibaatayna maahan waa meel oo maartay maxaa la dhahayo qofka maskaxdiisa jawigiisa inuu u degan la rabo maskaxdiisa ay u degto waxyaalaha xumaa uu cunayna uu kaga nasto tahay walaal wuu jira dhaqtar ayaa jira caalami ah oo dawladda u shaqeeya Kenya isbitaalka weyn oo BGH leerhana ka howlgalo oo intana linki ku oo meeshan xafiis ku leh oo qof Allah qofka imaada review garee oo sida ugu dhaqsiyaha badan soo gaaro wacno inoo imaado daawadina u qoro sida ayada ugu howlgala meeshan ee Sober Rehabilitation ka tirsan ayaa jira naas aan leenahay waxa kale jiraan leenahay naas oo maartay maxaa la dhahayna oo ka shaqeeya Sober Rehabilitation oo qaybta daawada iyo waxa u xil saaran intaas aan leenahay waad mahadsantii walaal Sober Rehabilitation and Wellness waxay maartay Gaarisa degmada Gaarisa kaga taala xaafadda Bulo Sagaaray gaar ahaan masaajidka Muxsin waxaad kala soo xiriiri kartaa Sober Rehabilitation and Wellness 0721 50 3993 0721 50 3993